السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waad salaaman tahay daawadaha qiimaha badan ee daawanaya fiidiyogeena kan ah ee ku soo dhawow barashada luqadda Kiswahiliga. casharkeena taxanaha wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysi ama wada hadal, majibizano, wada sheekaysi iyo wax kale oo waxaan ula jeedaa afka Soomaaliya wuxuu leeyahay sidee tahay waxyaabo badan lagu dhaho sida beelo ma tahay, dhagdhag ma tahay, xaaladaada ka waran. afka Soomaaliga sidoo kale wuu leeyahay. ku soo dhawow casharka. unaendeleaje see tahay, simpaya maxumi, habari yako xaaladaada ka waran, niko salama waan fiicanahay, uhali gani xaaladaada ka sheekee oo see tahay xaaladaada ka sheekee, niko vyema kabisa aad ayaan u fiicanahay. oo waxa kala dhihi kartaa mimi ni mzuri waan fiicanahay, mimi mzima waan fiicanahay. hujambo waran see tahay, sijambo fiican, sijisiku vizuri fiicnaan ma jirto, sijisiku vizuri fiicnaan ma jirto. jema bello dhagdhag waayo xaaladda waa la iska fiican yahay. kwa nini unakuja hapa, sababtee u timid halkan. ninakuja hapa kazi kwa sababu mimi ninajua kufanya kazi. halkan waxaan u imaaday shaqo, maxaa yeelay anigu shaqo sida loo qabto ayaan aqaanaa. kwa nini unakuja hapa, sababtee u timid halkan. ninakuja hapa kazi kwa sababu mimi ninajua kufanya kazi. halkan waxaan u imaaday shaqo, maxaa yeelay shaqo sida loo qabto ayaan aqaanaa. kazi gani unajua, shaqadee taqaanaa. ninajua kazi ya yumba, waxaan aqaanaa shaqada guriga. kazi gani shaqadee, unajua aad taqaanaa, shaqadee aad taqaanaa. ninajua waxaan aqaanaa kazi ya yumba, waxaan aqaanaa shaqada gurigaan aqaanaa. utafanya kazi na pesa ngapi kwa mwezi. utafanya kazi na pesa ngapi kwa mwezi. imise lacag ah ayaad shaqada ku qabanaysaa bishii. $100 $100 aan ku qabanaa shaqadaasi. utaanza kazi leo, waxaad bilaabaysaa shaqada maanta. leo tarehe ni 1, taariikhdu waa 1 maanta. niko tayari, diyaar ayaan ahay. asante sana waad mahadsan tahay, aad ayaad u mahadsan tahay.